dhibaatada wada hadda waxay ku shaqaynayaan maahin fikir Soomaaliyeed maahin aragti caafimaad qabta maahin aragti dadka cadaalad loogu falaayo maahin waa aragti hadda nafanayo warqad la qoray hadana qaldaneen mar hore kun adiga markii ay waxa la qoray May 1991 ay SNM Somali National Movement oo ay tahay qabiilada nala degan inaysan hubna helin lana cunuqabateeyo famisa marka waxaan waa istaraatiijiyad hore u degsaneed oo lagu soo dhaqmaayay waana istaraatiijiyad gumeysi oo ah in ummadan la isnacsiyo hadda hadii ay hadafkooda gaaraan hadda yay u shaqaynayaan Soomaalidan ugu jirta maxay wadaan maya Ingiriis iyo gumeysi dan ugu jirta waxay wadaan waxa weeyna in Soomaalida marka hore inay kala go'do wixii awayaashin ay ka dagaalameen ay gumeysiga iska dul qaadeen wuxuu Ingiriisku doonayaa dadka in la kala gooyo xagga Soomaalida marka ku shaqaynaya ideology qarnigii tagay qarni kadib gumeysigu oo waday ku shaqaynaya maanta waad maasantay walaalkay cunaya horta dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadka Soomaaliyeed geesiyaasha ah waxa weeye doonaya inay ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadaalad hesho markaad qof Soomaali u hiiliso hal qof oo dadka Soomaalida kamid ah qofkaas hadduu rabo walaalka ha noqdo waxaad u hiilisay ummadii Soomaaliyeed oo dhan qofka Soomaaliyeed u hiiliya degmadiisa ama tuuladiisa ama deegaankiisa ama gobolkiisa ama qabiiladiisa wixii waxa weeye aan qaban yiraahdaha laga daayo qofkaasi aniga xaggayga waa qof Soomaali oo weyn waayo dulmiga Ilaahay ma jecla Ilaahay xaq uu jecel yahay iyo wanaaga iyo cadaaladda wax looga dul qaadan karo waxa weeye musabixi iyo ragiisu waxa ay wadaan maaha Soomaalidu oo dhan waxay isku raacsan tahay waxa Somaliland hadda ka socda ama gobolada waqooyi ka socda hadii Ilaahay ka dhigayo waxa weeye dhibaatooyinka nooc walba leh aan mid quro oo hadii Allah ka dhigayo meel la taaban karo oo la danime aanay jirin ama fayowi jirin waxa weeye wax loo dul qaadan karo maaha warku xigmadiisa iyo gobonimadiisu waxa weeye waxa maanta jooga iyo sidii wax looga qaban lahaa in laga hadlo oo waliba anigu waxaan qabaa Xaamud Maashay anigu waxaan bartay oo hadii Alla ka dhigayo intii uu siyaasadda ku jiray wasiirka noqday iyo ka horba warkiisa iyo dagaalkiisa waan la socday laakiin waa muddo 12 sanadood 12 sanadood ba Xaamud wuxuu ka mid ahaa raggii ka hadlayay ka dagaalamay dulmiga iyo xaqdarrada iyo dhibaatooyinka ka jira gobolka Awdal iyo gobolada waqooyi marka runtii waxa weeye waxa loo baahan yahay arrinku in aynu ficil u bedelo oo anigu waxaan qabaa in laga shaqeeyo oo raggu isaga yimaado sidii hadii Alla ka dhigayo waxa weeye la isaga baacin lahaa taliskan dhagarta badan ee ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaya aan cidnaba u aabay yeelaynin waxaana xaqiiqo ah aan idin xaqiijinayaa dadka ugu badan ee ku dhibani waxa weeye waa dadkii SNM taageeri jiray weey SNM oo hadda aad maqlaysaan hadii Alla ka dhigayo oo aynu rag badan soo hadal qaaday dadkii taageerayaasha uu ahaa moodayay hadii Alla ka dhigayo in dhibaatada lagaga baxayo oo SLM meesha ay u socotaa ay tahay wadadii horumarka iyo gobonimada iyo wadajirka iyo dawladnimada iyo cadaaladda iyo sinaanta dadkii juhdigooda iyo dhaqaalahooda iyo xoogooda iyo maaragtay dhiigooda ku bixinayay way kuwa ugu dhibaatada badan ee waxa weeye nidaamkan uu dhibaataynayo nidaamkanina waxa weeyaan wuxuu kaga duwan yahay nidaamyadii hore Soomaalida Soomaalida waa nidaam aan waxba reebin way waa diir way hal diir la yiraahdo baa jirta oo dhulka barwaaqa oo waxa weeye roobku intuu naqdaay doogu cirka iyo dhulka is haysto oo waxa weeye maasha Allah lagu jiro ayaa dhulka waxa ka dilaaca dulun xawayaan diir la yiraahdo marka wiig qurabay waxa la wixii carada jiray dhameynaysa waxay la mid tahay baasha la yiraahdo ayaxa baalka la yiraahdo kale la mid tahay marka waa diir way waxba reebi maayaan wax alla waxay ka xishoonayaan nin waayeela waxaad arkaysaa waxa la xiray inan yaro Facebook wax soo dhigtay gabar yaro 20 jira oo gurigoodii joogta ayaa sawirkeeda calanka Soomaaliya ama diriceedaba oo eeg calanka Soomaaliya ayaa lagu xiray baad arkaysaa waxaasi wax ka turjuma ummadnimadayadii iyo SNMta ka hadlaysaan oo aan waxaan ragii kamid ahaa waqtigooda ku bixiyay ee dhiigooda u horay maaha wax ka turjumaya qabiil dadka
nidaamka waxa la yiraahdo qabyaaladda iyo qabiiligu waa kala gaar markay noqoto qabiili anigu isaaqnimada nin qabiiliya baan ahay nin reereed baan ahay nin Soomaaliya baan ahay Soomaalinimadan qabiil ku ahay oo qabiil ku ahay oo ku dhaganahay isaaqnimadan aaminsanahay oo nin isaaqa baan ahay waxaas wax ka turjubaya value-ga iyo dadkaanu ahayn ma aha waayo waxa weeye arrinka kaliya ummadda haddii alla ka dhigayo masaalixdeeda iyo danteeda ka turjumi karaya waxa weeye waa in waxay doonayaan laga midho dhaliyo xataa haddii Soomaaliya laga go'ayo oo dalkii Soomaaliya laga jarayo oo sidaa dan la moodo oo aragtidaasi ay tahay ta loo socdo waa in dariiq sax loo maraa looma mari karo mid dhagar ah oo dadka Soomaaliyeed kala fogeynay maalin dhaweed halkan Twitterka waxayna la jooga kooxo markii magaalada Addis Ababa kubaddii ay Soomaalidu badisay la ciyaaray wadamadii Afrikaanka ahaa inama yar baa badiyay oo wiilasheena la leeg oo qof kasta oo insaan oo wanaagsan hambalyo ka mudan qof kasta oo Soomaaliyana waxa weeye si gaarada ay guushoodu waxa weeye qayb uu uga yahay oo inuu ku farxay tahay markiiba waxay soo dhigeen wiilal yar oo kala sawirradooda aniga xulkaygu waa kuwan fikradaha iyo caqliga noocaas ee catifada ku salaysan iyo emotionalka xaaja rag maaha waxaanu aqbali karayna maaha waxaanu ka dagaalamayna haddii alla ka dhigayo habeen iyo maalin baanu halkan uga hadlayna iyo golayaasha kale Soomaalidu isugu timaadaan waa kuwaas waayo wixii aanu ahayn waxaan ahayn baa ka socda waxaan ku soo gabagabeynayaa ilmaada reyaal oo kalmadaydaas jawaab la duubaya barnaamijka oo waa arrin wanaagsan duubistuna laakiin waxaan rabaa inaad nood garaysaan waa meel ku qortaan dadka deegaankan degani waxa weeye dadkan Soomaaliyeed gobolada waqooyi degan sida Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo reerowdal lagaba yaabo inay dhibka ka sheeganayaan ama u arkaan dulmiga lagu hayo inay qayb ka yihiin waxa ay Soomaali ka dhaxayaan hal arrin oo yar oo ka turjumaysa cidda dhabta ay yihiin baan rabaa inaan idin sheego waxaanu saaxiib nahay oo magaaladan wada joognaa nin la yiraahdo Ibrahim Sulub oo ku dhashay magaalada Hargeysa sheekuu iga sheekay 1978 markii dagaalkii Xabashida iyo Soomaalidu socday reerkoodu wuxuu ahaa reer dan yara oo magaalada Hargeysa duleedkeeda degan halkaas ay deganaayeen qoys yar oo haddii alla ka dhigayo waxa weeye carruurtooda yaryar yihiin bay ahaayeen aabihiina militariga ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed buu ka mid ahaa dagaalku ku maqnaa wuxuu yiri waxa dhacday markii dagaalkii uu meel adag la isla gaaray waxa weeye Xabashidii la jabiyay ee Soomaalida rag badan dagaalka ku dhintay rag badan ku dhaawacmay gurigayga waxa la keenay raggii aabahay saaxiibadii dagaalka kula jiray rag badan oo kamid ah waayo aaga ragga ka dagaalamay baa jigjiga iyo dhulkan haddii alla ka dhigayo dooxooyinka gobolkan faafan la yiraahdo ragga ka dagaal galay ayay ahaayeen raggaas la keenay gurigoodii marka aabahay baa waxa weydiiyay markii nabad u dhacday ee dagaaladii laga soo noqday muddo laga joogo aab raggii ay ahaayeen halkan lagu hayn jiray dhirtaan ay noo waabnay gurigeena agtiisa dadkii yaalay dhaawacay lagu dabiyay xalkooda ay ahaayeen marka wuxuu yiri hebel wuxuu ahaa tusaale ahaan raggii haddii alla ka dhigay nin walba deegaanka soo jeeday hebel waxa weeye Barawaani buu ahaa hebel Raxweyn buu ahaa hebel wuxuu ahaa haddii alla ka dhigay Shiidlu ahaa hebel wuxuu ahaa Awrtablu ahaa hebel wuxuu ahaa haddii alla ka dhigay Ciisu ahaa hebel habar jecel ahaa dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay ka koobnaayeen waxa markaa xiisalo arrin cajiib ka dhigayo unique adeegaas iyo daryeelka waxa bixinayay haweenkii Soomaaliyeed guriga joogay hooyadii carruurta dhashay hablaheedii haddii alla ka dhigayo dumarkii kaaga dhawaa ereyadaas ayaa raggaas waxa weeye kaadida ka qaadaya cunada siinaya dharka ka dhaqaya haddii alla ka dhigayo daryeelaya daawada siinaya waayo waxa weeye Soomaaliya oo dhan baa dagaalka qayb ka ahayd dadka Soomaaliyeed ee halka degan ama ummadaas haddii alla ka dhigayo anigu aan odaygoodii ahay waa dadka noocaas ah weey gaadiidkii dadweynaha ee haddii alla ka dhigayo xamuulka ayaa dagaalka qayb ka galay waana joogaa raggii saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadiiba halkan golaha ku jiraan nimankii ku jiraan arrin u gaar ahayd iyaga ma ahayn Soomaaliya oo dhan baa qayb ka ahayd laakiin waxa la isla qirsan inay hormuud ka ahaayeen 64 iyo 77 marka Soomaalinimada cadaaladda wax wada lahaanshaha wanaaga hormuud baanu nahay qayb baanu ka nahay way noogu badisaa maslaxadeeda iyo danteeda ku jirta inaanu sidaa haddii alla ka dhigayo waxa weeye aamino una shaqeyno waayo annaga Soomaali cidna marti ugama nihin Soomaalinimada
way noogu badinaysaa waa ku baraaraynaa laakiin waxaynu u baahannahay hadda imika inaynu ka wada shaqeyno anigoo warka idiin soo koobaya talis muusabixi ninka muusabixi la yidhaahdo iyo ragga inta yare la caqliga ah oo aynu ognahay xaqiiqatan runtii waxa weeye aan la beenin karin inay bulshadii in badan oo ka mida duufsadeen oo kuwa halkan twitterka inala joogaaba dee ka mida runtii in laga horleexiyo ummadda soomaaliyeed waa in dadka soomaaliyeed ee halkan ku jira ay juhdi iyo dadaal nafta u huraan oo naf iyo maalba ku bixiyaan sidii nidaamkaas loo fujin lahaa oo xididada loogu siibi lahaa waxaana la joogaa xilli ay aad iyo aad iyo aad u sahlan tahay waayo waxaa la gaaray oo hadda haddii alla ka dhigaya aynu joognaa xilli ay noqotay somalilantii dadka loo sheegay iyo wixii loo sheegayay oo dhan ay noqdeen wadda dhuxuleed ama wadda xagaaf wadda dhuxuleedda horena waan idinku sheegay waa waddooyinka caadigaa ka bayra wadda yaroo kaymaha dhuxusha laga soo qaada dhuxuladaysatada ka soo qaada bay gashaa sidaad u socotaabay habeenkii kula gelaysaa kayn cidlaa dib baad u soo laabanaysaa waddadii weyneyd baad qoorsanaysaa dadku waxay ogaadeen meeshii loo waday iyo wixii loo socday iyo wixii loo sheegay oo dhan inay been ahaayeen sheekooyinka cajiibka ah waxaa ka mid ahaa loo sheegi jiray ummadda in 1960kii labadii taliya ciidan ee booliiska iyo militarigu ay kala noqdeen majeerteen iyo abgaal ama cismaan maxamuud iyo nimankii la yidhaahdo iyo abgaal wasiirkii arrimaha dibadda iyo kii arrimuhu gudubaha ay kala noqdeen haddii alla ka dhigayo nina saacada buu ahaa nina majeerteen buu ahaa sidaasaa warkii loo dhigi jiray waxaa la lahaa soomaalidii aanu 60kii ku biraynu calankeenii siinay sidanay naga yeeleen 30 sannadood maleeshiyaadka hadda ay ugu yeeraan ciidanka qaranka ee somaliland ka jira degmada yar Gabiley la yiraahdo gobolka waqooyi galbeed ka tirsan qof aan ka soo jeedin taliya kama noqonin weliba dhagarta ay ka geysteen geyga Soomaalida ee ay cid walba u geysteen oo aanay cidnaba waaba yeelin wax aynu haddaynu caawo dhan ka hadallo dhamayn karayna ma bugaagta waddanka adduunka taalo haddii lagu qoro khadka dhamaanaya gadafliyada ay ka geysteen meel walba dadka Soomaaliyeed u geysteen marka nidaamkani waa nidaam dhagar ku ah dadka Soomaaliyeed waxaana loo baahan yahay in la rujiyo sida kaliya ee lagu rujin karayo ama xididada loogu siibi karayaana waa midnimo iyo inaan lala foostaran habin halganka oo SNM iyo isaaq iyo meel kale lala aadin isaaq baa kow ka ah dadka doonaya inay nidaamkan xididada u siibaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idin ducaynayaa shacbiga Soomaaliyeed ha midoobo ha wada socdo nimankaas haddii alla ka dhigayo meesha la garacadna dee caawo dhan waa u hambalyeynay halka ka sii wada baan leenahay halganka iyo haddii alla ka dhigayo dibadhiska Soomaaliya assalaamu calaykum أنا أدبوك ماسي هذا اللذا في عنه إنه سجديي مركا كلي waxaan ku dari uun in wuxuu nidaam ka laga soo horjeedo waa in laga soo horjeesto waa run kala go'ana waa in laga soo horjeesto waa iyada laftigeedu dib ku yahay ummadda Soomaaliyeed marka kulley de Soomaaliya kastoo arkayo in Soomaaliya inuu yahay Soomaalinimaduna aad ugu dheer tahay inta ma ugu daraya ta kale waxa weeye in Suldaan hadalkiisii wuxuu yiri dirindiirta ayuu yiri oo dhowr jeer ku celiyay dirindiirta run ahaantii mar baan iska yargashadaa maansooyinka maansaan mar akhriyayay oo moogtahay yaabay baan moogtahay dadkii markaan garan waayay Soomaaliya dhankay u socoto in ay dadkii sida la noqday wadankii waxa ku habsaday waxa xukumaaya waxay waan yaabay marka dareenku kolbu wax ka keena adoon xitaa gabayaaba ahayn ayuu wax ka keena marin kastoo iska yargashado in marka noocan jiiftada la yiraahdo kala u sameeyay oo marka de gabay maahay waa maanso oo jiifto oo kala bal waan yar dhageysiini in mon dhageysiini maansada ana dad baan markaa la hadlaayay meel waxay ahaydna Saciid Saalax iyo ay joogaan oo markaa Saciid Saalax iyo baan horta amaanay oo macallimaan amaanayay taasi waa gooni markii dambana dudumadan ka hadlay dudumadana inaad garanaysid kulli waa la garanayaa aan filayaa badankiinu dad waaweyn baa tihiin waana sharxaya waana markaa bal waan dhageysiini halkan tan labaad waxa weeye waa dudumadu waxa weeye waa ciida malaasan ee halka iska taala mustaqbal ma saadaaliso wixii socday ma jirto wax damdam iyo dig kastoo ku dhacaysa ma oga danabka dhacaya ma oga waxa ma jirto aakhirkana daadka u baaqado dooxyada ku daran markaasay baabaadaa marka waxaan leeyahay dundumooy dareen laay damiin darxumo huwanay
waxaa danab dhacaaye kaymaha dab qabadsiin waxaa daruur onkodiye dhagaxyaala sii dayn waxaa dirir dhacayse aadanuhu isdabargoyn waxaa duli la diide heeryada la daadini kaa daahan adigoo damdamtiyo digtaa dhici hurdo kuuma diidaan daar weyn la moodiyey beentaad la duubnayd dadku wada ogaayo dugowda sharaftaa dabuubta lagugu duri su'aalaha la isku diri dulcideeda iga qabo dundumoy ma dabqataa haddii dabar lagugu xidho dadkoo gebi dayaxa degay docdii weli ma jiiftaa deganaasho mooye dareen kale lagaa waa xagla duuban dabna xidhan dawdarnimo mooye damci kale lagu diid doc kastoo lagaa galo dhan kastoo lagaa duro si kastoo lagu dusho daymo kulul iyo dareen darbiyadu gariiraan dadku kaama sugayaan dulqaadkaagu badanaa caqligaagu dadanaa doqonnimo daran iyo darxumada gebigeed darifkaad ku wadataa carro doorsan baad tahay derbi indhala baad tahay habeenkaa deris la tahay gurcudkaa dadku xiga digarogodna diido gabalkaa dam weeyaan danahaaga mooye dan kalaad yagleeshaa dayr baa lagugu xidhay dabool baana kuu dheer dibindaabyada qarsoon dabinnada lagugu dagi garaadkii dayi lahaa maankii dersi lahaa mugdi baa ku dadanoo dayr hore digirin dhintay iyo haadka duulaa kuu dowladeeyo dalkaagaba xukuma dilaal iyo malaalkana dugsi baad u noqoto arrinkayna doonayn dadkoo dhani ogaadaan dariiqana kala durkeen magaalana kala dideen aday kugu dayaan oo baryo kula dul joogaan dundumo dareellay degalkaa qorxoone adduunyadu wada danayn adi dacar qadhaadhiyo dalan jirin ma kula yahay ma ka duday dadkoo idil dahab baa dul hurdaa malab baad la darisahay deeqdaasi kaa dadan daleed baad ka jiiftaa daaduunnimo awgeed ciidaad u dunisaa kaa durug daryeelkii aadanuhu dugsan jiray adiga iyo diinkaba dadaalkiina laga dhimay intaad dawlad u tahay danahoodu doorsame dibudhac dhaqaaliyo siyaasad dambaysiyo cidlo laga dareeriyo buulal daldalooliyo arri laga dareero cididooni weeyaan degalkaad ku nooshahay dermaduna kuu taal ilbaxnimadu ka dudo dibna loogu kari waa dushaada halaq mariyo dabagaalo falan iyo dirindiir derderan iyo aboor wax dudubin iyo dugaag waalan mooye laga waa dad nool hela duufaanada dhiciyo dabaylaha xagaagii marna diidi weydo dow kale mari waa dawankii halaagaa daruuraha lagu suray deeq wacanna moodo intaad daawanaysaa daadkaasi soo rogman kugu biirin dooxyada waad mahadsantihiin ما شاء الله. ها marka mar horaan tiriyay maansada marka cunayaan inta soo